السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa Somali Media. fadlan haddii nagu cusub tahay channelka subscribe saar si aad noola socoto wararka halkan aan soo gelin xagaag. War hadda soo dhacay ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre xilka laga qaaday. Sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal ayaa sheegay inay kala noqdeen Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre kalsoonidii. gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay inay kalsoonida kala noqdeen 170 xildhibaan halka 8 xildhibaan ay diideen. sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay inaysan jirin wax ka aamusay kulanka oo diidda ah. gudoomiyaha ayaa ugu baaqay madaxweynaha federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu u soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub si uu dirdirgeliyo howlaha horyaalla xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. gudoomiye Mursal ayaa ugu baaqay ayaa ku eedeeyay inay ku fashilantay xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre howlihii loo igmado ahaa inay doorashooyinka 2020-2021 iyo maqaamka magaalada Muqdisho ee dhameystirka ay ku fashilantay. ma jirto wax war hadda ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha oo arrinkaas ku saabsan. waxaan in la socodsiin doonaa warkeena